raxmadii ilaah iyo dadyo waatan rabadaane raxmadii ilaah iyo dadyo waatan rabadaane rajab waa dhammaato shabcaan reesto toban baa waqtiyada isrixo iyadoo roraysay timideen بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين رمضان مبارك هذه وقتك كالمه waxa ka lumay waa amrigaagii waqtiguna waa hantida ugu weyn ee uu haysto qofka bini'aadankii waana tan lagu xisaabinayo maalinka qiyaamaha sida ku jirtay xadiiskii nabiga kaleey salaatu wasalaam wa an umrihi fima afnah waxyaaba qofka la weydiinayo waxa kamida marka qiyaamaha la soo taago waqtigiisii iyo waxa uu ku lumiyay marka hantida ugu weyn ee qof bini'aadani uu mulkiyo ama uu haysto waa waqtiga haddii marka hantidaasi aad uga faa'iideysato sidii loogu talagalay waxaad noqonaysaa qof wax soo saarkiisu uu badan yahay haddii uu ka khasaarana waxa uu qiyaamaha iyo adduunyadaba kugu noqon doonaa mid aad ka murugooto sidaa awgeed waxaan idiin soo diyaariyey tababar anigana iga qaatay waqti aad u badan oo aan ugu talagalay inaan uga faa'iideeyo walaalahayga muslimiinta ee daawanaya marka aan leeyahay tababar macnaha tababarku waxa uu ka duwan yahay lecture-ka ama muxaadarada waayo lecture-ka iyo muxaadarada qofku waa uu hadlayaa qofka kalena waa uu daawanayaa isagoonan ra'yi ku lahayn ama isagoo aanay ka dhaxaynin labadooda wax xiriira laakiin marka ay noqoto tababar qofkii hadlayay ee wax soo jeedinayay iyo qofkii kale isaguna daawanayay waxa ka dhaxaynaya wada xiriir iyo contact bay yeelanayaan sida awgeed inta aynu tababarkan ku jirno waxa idin diri doonaa assignment waxa idinka qaadi doonaa imtixaano kala duwan si maalin walba idinkuna muuqaalka aan soo gudbay aynu uga wada faa'iideysano waxna uu inoo taro tababarkan ujeedada aynu ka leenahay waxa weeyaan qof waliba uu u saxo waxa ka dhiman waxa laga yaabaa in fara badan inaad waqtiga wax ka akhriday laga yaabaa lecture fara badan iyo muxaadarooyin badan inaad ka dhageysatay sida waqtiga loo maareeyo iyo sida waqtiga loo habeeyo laakiin markii aad istribal jadwal qoro jadwalkii aad qoratay in aad ku dhaqmi kari weeday ama ay ku suuro gali weeday in sidii adigu aad wax u rabtay ay noqdaan waxa idin wadaagi doonaa sababta keeni karta in qofku jadwalkii isagu gacantiisa ku qortay uu ku dhaqmi kari waayo qodobka kale muhiimkii waxa weeyaan idin wadaagi doono maxaa keena qofku in uu waqtigu ka lumo waxaynu soo tirin doonaa waxyaabaha waqtiga lumiya iyo mid waliba sida loo daweeyo ee la iskaga joojiyo waxyaabaha cajiibka iyo yaabka badan ee culimadu la kulmeen waxa kamid ah in qof baa wax laga yaabaa maanta inuu ka cabanayo inuu yahay qof lazy oo caajisa oo aanan waxba qabsan karin hase yeeshee marka dib loogu noqdo qofkani yaraantiisii waad aragteen carruurtu markay yaryar yihiin carruurta iyo waalidku mar walba waxay iskula kadeedan yihiin waa naga fadhiiso mar walba wax laga yaabaa in waalidka carruurta lagu dilo inuu fadhiisto ama qaylada joojiyo ama uu aamuso qofkii isagoo oo yar ku dhashay firfircoonida intaa leg ayaa marka uu weynaado ay la soo darsaysaa xaalad caajisa iyo wahsi iyo inaanu waxba qabsan karin marka waa la baaray qofkii bal caajis waxa la baaray qofkii firfircoonidiisii halka ay ku dambeysay waxa idin la wadaagi doonaa markii aad yareed adigoo ahaa qof firfircoon maanta markaad weynaatay maxaa keenay inaad caajisto tababarka noocan oo kala markii la bilaabay sodomeeyadii iyo afartameeyadii ee qarnigii hore waxa loo bixiyay time organization macnaha waa habaynta iyo nidaaminta waqtiga tababarkan oo kale magaciisa saas laga dhigay laakiin muddo dambe kadib ayaa waxa la ogaaday in erey bixintaasi aanay ahayn mid sax ah waayo waqtigu waxay yiraahdeen waa shayga kaliya ee adduunyada habaysan ee sidii loogu talagalay u socda sanadku waxa uu ka kooban yahay 360 maalimood bishii waxa ay ka kooban tahay 30 maalimood saacadii waxa ay ka kooban tahay 60 minid marka wax habaysan oo adiga gacantaada wax adigu aad habayn karto adiga gacantaada ku jira maaha sida awgeed markii dambe waxa lagu bedelay erey bixin cusub oo loo yaqaano time management ama maareynta iyo maamulka waqtiga baaritaan kadib erey bixinta lafteeda waxa soo baxday inay wax badan ka khaldan yihiin waayo maareyntu maxay tahay ama maamulku muxuu yahay maamulku waxa weeyaan waa wax adigu aad control karto wax ka qaban karto tusaale ahaan shaqaalahaaga maanta hadii aad tahay qof shaqaale u shaqeeyo waad control kartaa mid baad halkan ka bedeli kartaa shaqo kale u dirsan kartaa lacagtaada waad maareyn kartaa waad control kartaa in baad wax ku qabsan kartaa inna meel baad dhigan kartaa laakiin waqtiga ayuu gacanta ugu jiraayo maareyn kara ama maamuli kara waqtigu waa ka iska socda maalin walbana ku soo maraya ee ku dhaafaya ee aan kugu soo laabanayn sida awgeed markii dambe waxa la ogaaday in waxa u baahan in la maareeyo
ama la maamulo una ahayn wakhtiga ee ay tahay nafta bini'aadanka. marka tababarkeenu wuxuu ku saabsanaan doonaa ama maareynta wakhtiga. marka aad maqasho wakhti lama maareyn karo, laakiin waxa weeyaan waa maareynta nafta bini'aadanka si uu qofku uga faa'iideysto wakhtiga uu haysto. sida awgeed maalinka qiyaamaha qofku waxa uu tamaniyaa ama uu jeclaanayaa bal haddii uu hal maalin uu ku soo laaban lahaa adduunyadii uu ka tegay yowman waaxidan faqad. hal maalin ayuu rajaynayaa bal inuu ilaahay soo celiyo oo wakhtigii uu soo dayacay uu ka faa'iideysto. waxaa jiray imaamkii weynaa la oran jiray xasan albasri raximahullahu ayaa maalimaha ka mid ah waxa dhacday waxuu la joogay nin ay saaxiib ahaayeen. iyagoo meel wada taagan ayaa waxa soo martay jinaasad meyd la wada ayaa soo maray. kadib imaamkii xasan albasri saaxiibkii waxa uu weydiiyey, wuxuu ku yiri bal waxaad ka warantaa meydka imika halkaa la wado haddii adduunyada lagu soo celin lahaa oo hal maalin oo dheeraada loogu dari lahaa ma u malaynaysaa buuri inuu camalkiisii uu qabsan jiray markii hore ama qaabkii wakhtigiisa uga faa'iideysan jiray inuu wax ka bedeli doono? markaasuu yidhi dabcan haa, waayo qofku marka uu dhinto xaqiiqada ogaado haddii wuxuu yidhi ninkaa maanta dhintay hal maalin uun la soo celin lahaa wax badan oo khalday ayuu dib u sixi lahaa. markaasuu imaam xasan albasri intuu saaxiibkii sidaa u eegay ayuu ku yidhi isagu maanta haddii uu fursad u waayey inuu noloshiisa wax ka bedelo, adigaa nool oo maanta xayaya oy naftu kugu jirtaaye inta ay naftu kugu jirta ka faa'iidaysa wakhtigaaga oo isku day in aad wax iska bedesho. haddaba su-aasha ugu horreysa ee aan rabo qof waliba inuu isweydiiyo waxay tahay wakhtiga maxaad ka aaminsan tahay? waxaa jira waxyaabo badan oo maskaxdaada ku jira oo laga yaabo inay qaarkood sax yihiin, qaarkoodna laga yaabo inayna sax ahayn oo aad ka aaminsan tahay wakhtiga. sidaa awgeed tababarkeennan waxa aynu ku bilaabi doonaa imtixaan yaroo kooban oo loo baahan yahay qof waliba inuu ka soo shaqeeyo. 10 su'aalood ayaa idin soo dhigi doonaa video description kad ka download gareysanaysaan. waa 10 su'aalood buu ka kooban yahay imtixaanku, waa sax iyo khalad. marka waa idin soo turjumay af Soomaali baan idin ku soo qoray. su-aasha markaad akhrido siday kula tahay baad eegaysaa, kadibna ama sax baad ku hor qoraysaa ama khalad. jawaabaha saxdaana maalinka bariya ayaan idin siin doonaa haddii Ilaahay na gaarsiiyo. aad iyo aadna waad u mahadsantihiin. ballankeennu waa maalinka bariya haddii Alla ina gaarsiiyo saacadu marka ay tahay 2 duhurnimo. waxaan idinkaga tegayaa ramadaantu ha idin wacnaato, allaha acmaasha inaga aqbalo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.